kusoo dhawo telefishinka waan dhaw aad baa mahadsantihiin waanan ku faraxsanahay runtii inaad iga wareysanaysaan buuggan sida ay soo weydiiseen diyaar baanan ah hogaamiye buugga aad sheegtay ay waraysigeenu ku saabsanaanaya buuggeyganu maaha buug novel maaha buug jacayl ka warramayana maaha buuggan waa buug xusuus qora dhacdooyinkii taariikhdu ka warramaya marka dhacdooyinkii taariikhda ee aan soo joogay ee aan shaqaynayay iyo waxyaalihi aan la kulmay baan ka warramaya taariikhda iyo been lagama sheego taariikhda been lagama sheego cid walba waxbaa u hela ninka siyaasigu siyaasaddu ka faallooda ninka qoraagana qoraalku ka faallooda anigu qoraa hore ma ahayn oo iminkan buuggan qora hadday dadka qoraaga bahda qoraalku soo jeediyaan oo intay dhugtaan oo daalacdaan yidhahdaan war halkaa halkaas way dhaliilanta dee mushkiladba maaha waa nuskhadii ugu horreysayo nuskhada labaad baan ka saarayaa oo saxayaa oo toosinaya ma bedelaysa raaligelisa ma bixinaysa haddii aad garwaaqsatid khaladaad haddii aan ku qanco maaha mid olole iyo ashqaas siyaasiyiin ay ku sameeyaan haddii se aan ku qanco dadka qoraaga ah haddaan ku qanco aaraadooda waa waxaan ugu gudbiyeybo ma bedelaysaa mahe waaban ka codsaday waxaanay ku qorantahay afeeftayda haddaad soo heshaan emailkii wakaas igala soo xidhiir buuggaanaad akhriyeyne madaxweyne inaanu musuq maasuq geysan oo uu nabcaa weliba buuggay ku qorantay inuu musuq maasuqa qofka ugu necab ahaa waa inuu musuq maasuq geysan buuggay ku qorantay taa aad leedahay madaxweynuhu ma talinayna adigay dembi kugu tahay iyo kii kaad ka soo warinaysay madaxweynuhu isagaa talin maxaan uga tegay haddaanu talinay maan joogo haddaan anigu talinay maan joogo soo ninka kaba tegeyba waxaad bal hadda isu fiirso hadalkaaga yani inuu iska hor imanayo waad ka tagta markii aad isku khilaafteen yani muuse bixi iyo tartankii kulmiye anigii baa ka tegey haddii aan anigu ka talinay maan joogo yani waaqac wuxuu ku siinaya caqliga saliimka wuxuu ku siinaya haddaan anigu haystay oo talinayay maxaanu talin waayo maxaan uga tegey madaxweynuhu isagaa talinayo mar horena waan sheegay waxaanu isku garan weynay taladii mustaqbalka markaasaan ku kala tagnay ma laga yaabaa ama suurtagal ma tahay in saameyntaadii mustaqbalka ee dhinaca siyaasadda gaar ahaana deegaamada aad ka soo wada jeedaan inay saameyn ku yeelato maya waxba dhib ka warwari maayo calaf waxaa la qorayna iseegi maayaan dadka qaarra way taageeri doonaan qaarra way diidi doonaan arrin khosaysa madaxweynaha yani foolxumo lagu sheegay iyo ceeb iyo cayna ma aha su-aashaada madaxweynuhu xusuustiisi baa hoos u dhacday adiga macay bay kula tahay mise waa odhaha caadiya anigu waxaan u dhigay odhaha caadiya oo anigaaba de xusuusteyda hoos u dhacda anigaygu imika aniga konton jira ayaa xusuusteyda hoos u dhacda haddii qoyska madaxweyne siilaanyo iyo mas-uuliyiintii kale ee xukuumadda la soo shaqeeyey arrinkaa ay beeniyaan oo yidhahdaan madaxweynaha xusuustiisu hoos uma dhicin adigu maxaad isku difaacaysaa ti anigu miyaan difaac iyo weerarba ma nihini iyaguna way la joogaanna waan la joogaan waxaan ogaa un baan sheegayo waxaan ogaa aan sheegayn maaha wuu xanuunsanayay iminka adaa xanuun baad ku sheegaysaa anigu wuu xanuunsanay marka afka kama soo bixin iminkana ka helimaysid madaxweyne siilaanyo dee muddo 5 sana baad la soo shaqaynayso gacanyarihiisii koobaad aheed wasiirkii ugu awoodda badnaa la sheegi jiray inaad tahay dadka ku dhaliilaa waxay aan hadcab ka dhaqaaqa maantana waxay aan wuxuu raaciyay waxyaabo iftiiminaya yani say doonaanba iyagu ha u dhigaane in caafimaadka madaxweynaha wax ka sheega waxba kama sheegin wanaga ku sheegay madaxweynahana isku deegaan baad ka soo jeedaa eegada qodob aanan odhan deele waan ka hor fadhiyaa waxaad tiraahdaa xusuusta madaxweynaha hoos u dhacday buu yidhi laakiin caafimaadka ha odhan madaxweynaha adigu marka ku odhanayso adigay ku tahay xusuus marwada madaxweynaha hore Aamin Waris ayaa tiri intii hore caafimaadka odayga ixtiraam baan isu haynay laakiin labadii sano u dambeeyay talada wadanka way ku soo dhawaatay waxaad uga jeedaa sidee ugu soo dhawaatay ma waxaad uga jeedaa booskii aad banaysay iyo dadkii ku bedelay ayaa loo aamini waayay ma awood bal halkaa sharax marwada anigu waan ku amaanay waxaan ku tilmaamay gabadh wax baratay ninkeedana ka dambaysa aada ula shaqaysa ilaalisa caafimaadkiisa annagana aada noogu ixtiraamta shaqada soo sidaa maan qorin labadii sane u dambeeyey waxaa muuqatay inay ku soo dhawaatay tale dee taladii ninkeeday ku soo dhawaatay ninkeeda gabadh wala way la talisaa waxaan sheegay inaan isri arrin noocaas ayaan lagu kala fogaanay isu soo yara dhaweyn aan ku guuldaraystay isku day anigu aan la imiyo mubaadaro anigu aan isku dayey aan ku guuldaraystay baan sheegay marka dee wax ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isku khilaafeen oo ahayd way isu geli waayeen meeshaba kuma taal
كمان أقول marka madaxweynuhu ku leeyahay soo qor ma sidoo ku leeyahay soo qor سو xafiiska waraaqa ka baxay oo dhan maan wasiirka madaxtooyada ma iyo diyaarinteedii iyo inamadii inaan ugu yeedha iyo inaan akhriyo intaan waraaqo dibadda u bixin eega iyo inaan sharci yaqaan haddii loo baahan yahay qodobo loo cuskanaya iyo soo ma ahayn qofkii xafiiska joogay wasiirka wahay wasaaraddan anigu beerare kama shaqaynaynin iyo bariis la beero maaliyadda kamaan shaqaynay dee siyaasad baan ka shaqaynayay siyaasadda madaxweynaha xafiiskiisa ka shaqaynayay wax kale aan shaqaynay qodobka 14aad ee dastuurka Soomaaliland waxa ku qoran xeer qaabeed iyo qofka sirta xukuumadda uu markaa ka tirsan yahay faafiya in la ciqaabayo waxaad sheegtay sir ma aragtaa asraarta waa la yaqaan dhacdooyinkii asraartuna waa kala gaar waxaan anigu ka warramay waa dhacdooyin iyo kulamo dawladdii anigu aan ka tirsanaan nimanka dawladdii aan ka tirsanaan ma joogto waa taariikh bugaygu taariikhdaas uu ka warramaya iyo dhacdooyinka taariikhda laakiin wax sir kuma jirto wax sir kuma jiro haddii dadka qaarba dhinac bay iska taagaya dadka qaar baa leh dee sir buu faafiyey oo qodobo badan cuskanaya haddii ay dhacdaba oo la yiraahdo xirsi cali xaaji xasan sirtii qaranku faafiyey waxyaabo lagu heshiiyo faafiyey adigu diyaar ma u tahay haddii sharciga laga soo wareede anigu diyaar baan buug baaban qoro ku qoray anigu diyaar baan boqolkiiba boqol laakiinse waxaas hadday dhacaan lama wariyo cid iminka tan ka soo hadashay ma jirto adigu haddaad soo akhriday waxaad ka akhriday i weydii laakiinse hadday taasu dhacday waa iska mala awaal iyo sheeko aan markaa dee taagnayn waxyaaba buga ku jira hogaamiye waxaa ka mid ah adigoo mahadsan ganacsadeena uu siciid arrimo ku saabsan oo doorashooyinkana la xidhiidha waxaad tidhi cabdiraxmaan ciro oo gudoomiyaha xisbiga wadaniga ahna musharxii xilligaasi ayaa waxa u soo bandhigay in 20 milyan uu siinayo haddii uu xirsi iska hortaaga xisbiga waanu ku biiray waa xilligaad xukuumadda iska cashisay aad xisbiyada doonaysa inaad ku biirto sidoo kalena lacag 5 milyan in cabdiqaadir jirde isna ugu ballan qaaday dad badan baa isweydiinaya gudoomiyaasha ama hogaamiyaasha xisbiga wadani haddii ogaayeen lacagta intaa leeg in ay socoto oo la isku baayacayo doorashada ka hor saameynna ay doorashada ku yeelanayso waxay u sheegi waayeen daadir waan ogeynay inay lacag haystaanoo taa iyo tuka badan ba haystaanoo dawladdan iyo dawlado kaleba taageeraya marka lacag kamaan aan baqaynay waxaan ugu bareernay anagoo xisbi mucaarada ah oo weliba anigu aan powerkii dawladda intan ka imi u bareeray yaan ugu bareernay inaanu taa kula tartano waa naga istagnayba marka dee baqahaas naguma jirin adigoo aad ka baqi lahayd commissionka naguma jirin waxaan u arkaynay inaan iyagoo fadhiyo oo lacagtaa haysta la tartami karaya commissionka ayaad qawadeen oo aad sheegtay inaanu daacad doorashadii ka ahayn uu wax musuqmaasuqay lacagaha iyo commissionka miyay si soo gali karaan halkan kuma qoran laakiin sidee wixii aad iga weydiinayso wixii halkan ka qoran iga weydii commissionka halkan waxba kagama qorin miyaad iga maqashay buugga miyaad ku aragtay commissionka lacag la siinay maya yaana lagu baayacabaan marka dee haddaad aniga haddaad weydiiso aniga kuu sheegay muuse biixi oo runtii dee ahaa markii madaxweyne Silaayad ka tageysay shakhsigii aad tidhi anigu Silaayad dabadii ayaan isku khilaafnay madaxweynaha halka loo rarayo qaranka buugga in badan baa laga filayay inaad ku soo hadal qaado laakiin inta badan kuma soo hadal qaadin meel baa laakiin ka jirta aad tidhi wuxuu yidhi iyadoo shir la fadhiyo laga arinsanayo mudaharaad biri dhacaya sidii laga yeelaa baa la tala soo jeedi wuxuu yidhi cabdiraxmaan ciro hala soo xidho bal arrintaa bulshada cadde warta dee weli waxaa kaa muuqata inaad buugga war u hayno muuse bixi meelo badan buu kaga qoran yahay meelaha uu kaga qoran yahayna dee aaraadiisa iyo taladiisa iyo ama ha qaldanaato ama ha sacnaatee iyo tallaabooyinkiisa uu qaaday wixii aanu annaga ku kolanay xilliga ahaa ayaan ku qora ma sax bay ahayd mise qalad bay dee isagaad weydiinaysaa laakiinse anigu dhacdan ka soo wariyey ugajeedadu ka lahaa ma garanaya baa ma ku yidhi marka ugajeedada haddaad doonaysa isaga weydii haddaad leedahay muuse bixi kumaad soo hadal qaadaysa hadal ku dhufatayna waan ku soo hadal qaadayo wuu ku qoran yahay meelo badanna wuu kuga qoran yahay maanta in sanad ku dhow baa laga joogaa xilligii muuse bixi cabti oo waddanka loo doortay muuse bixina si aada baad isaga soo horjeedeen muuse sanadkaas siduu wax u wado sidaad u aragtaa dee xisbi mucaaradaaba ka tirsan anigu waa ka soo horjeedaa dee miyaan isku xisbi ma nihin xisbiga mucaaradku iyo haddaanay muxaafidku iska soo horjeedin dee waa la isku dari lahaa
marka dee anigu waan kasoo horjeedaa xisbiga talada haya dee kuma jiro xisbigan la talada hayna dee wuu dhaliilaya laakiinse waktigii weli dadku in badan waxay leedahay war waktigii baa weli dhowey bal aan eegno marka musabixii dee waa madaxweyne oo shaki kama jiro isaga maanta talada haya qalad ee saxna inay ka imanayaan oo la dhaliili doono lana dhaliilay imanka shaki kama taagna laakiinse imanka dee arrinta buuggeena isugu nimi arrinta siyaasaddu waa markaaroo markii hore imaado oo kaa wareysanaya dee xisbiga wadani u guuldaraystay doorashadii lasoo dhaafay doorasho dambana uu isu diyaarinaya suurtagal ma tahay in aad guddoomiyaha xisbiga ama musharaxa madaxweyne xisbiga aad u tartanto horta awalan hadalka odhanaya wuu guuldaraystay hore aan uga hadlayo maanaan guuldaraysanay kursigaan gaari wey himladayada ahayd inaan kursiga gaarnaba suurtoobi weyday laakiinse maanaan guuldarsay waa kana xisbigay weli wuu talinaya wuu shaqaynaya wuu isku xidhan yahay kaalintiisiiba ku jira ta aad ka hadashay mustaqbalka dee lama gaadhinoo guddoomiyaa joogo musharax buu noo ahaayo kamuu degino kamaanaan tashano shirweyne lama qabano yani wax iminkaan ka faalloodo wakti aan la gaadhin ma jiro rag kaadirahoo odayaalahoo aanu asxaabnahay oo isku qanacsannahay oo aanaan iminka bilaayo kala wadinna way joogaan saaxada ugu dambeyn xirsi cali xaaji xasan wasiirkii madaxtooyadu soo noqday jaranjaro dheer buu soo maray hadda waa hogaamiyaha xisbiga wadani mustaqbalka ma doonaysaa inaad waddanka madaxweyne ka noqoto maxaan siyaasadda kasoo doonay makhaar furto haddaanan doonaynin inaan siyaasadda meel sare ka gaadho buuggaygana way ku qorantay inaan himilada higsanayo noocaas haddii ilaahay subxana wa tacala ay suurtogeliyo himiladaa waan leehay laakiinse de waa haya cala salaaya haddeeda goortay ku habboonaato hadday suurto gasho alxamdulillah haddii kalena waa waxaan sabada laga qorintay marka mushkilad ma